maamulkan galmudug baa la yidhaahdaa sida lagu ogolaaday dastuurka maaragtay ergooyinka soomaaliyada halkan isugu yimid ay ku ogolaadeen. marka de shirkaasina muddo dheer buu soo socday. waxaad la socotaan muddada uu soo socday ilaa maalintii la saxeexay walaalow ilaa maanta walaalaheen reer puntland madaxdooda iyo maamuladoodaba waxaa ka soo yeerayay warar aan ku fiicnayn derisnimada. marka arrintaas ayadaahi runtii waa nasiib darro, aad baanan uga xunnahay. waxaan u arkaynaa walaal gef baan u arkaynaa, waxaan u arkaynaa arrin aan meelna ka haysan shuruucda iyo nidaamka dalka. marka sida loo dhigayo ma ahan arrintaas ayadahay. laakiin cabdi, dastuurkan gobollada dhexe aad samaysateen haddiiba aad doonaysaan maamul wanaag iyo deris wanaag, waxaa ku qoran in xuduudda maamulkan ay tahay nugaal. maxaad ula jeedeen arrintaa? walaal annagu puntland lama oran, dastuurka galmudug lama oran, laakiin waxaa laga hadlahayo waxay ahayd mudug meesha la yidhaahdo waxaa xuduud lale waxa weeye waa gobolka nugaal weeye. dastuurka puntland waxaa ku jirta mudug inay ka tirsan tahay, dastuurka galmudugna waxaa ku jira inay xuduudu tahay meesha la yidhaahdo nugaal inay tahay. arrintaasna waxaa gaaray shirweynaha halkan ka socdo 400 oo qof ayaa u codeeyey. cod baana lagu mariyey, ma aha wax dad shaksiyaadii ama dawladda ama cid kale ay keeneen ma ahan. haddaan niraahno puntland muxuu ahaa mudug ha laga tiro dastuurkeeda, waxay noqonaysaa waxa uun macno laga samayn kara weye. laakiin cabdi, sidoo kale markaad fiiriso lahaanshaha dhulka ee puntland sida ku xusan dastuurkooda waxaa ku jira gobolka mudug oo dhan marka laga reebo koonfurta gaalkacyo, degmada hobyo iyo xaradheere, taasoo ka dhigan in inta kale mudug ay puntland maamusho. markaasoo ma cadda in labadiinaba dhinacba aad sheeganaysaan meelaha dhinaca kale uu maamulo. haddaad fiirisid khariiradda waxa weeye degmooyinka reer puntland ay sheeganayaan. degmada la yidhaahda galdogob waxa weeye in ka midii reer galmudug baa degan. haddaan ka soo qaado matalan bandiiroley oo laamiga hogtaa ku taal, degmada kaleo ku jirta oo la yidhaahdo saddex iglo waxa weeye waa meesha caalka gawlalo, waa saaxqurun, waa meesha la yidhaahdo laanwaaley. yacni ilaa la gaaro magaalada, yacni marka dhulkii magaaladii reer ha u badnaadeen, laakiin waa la wada degan yahay. sidoo kale degmada ay sheeganayaan oo ah jariiban waa deegaankeeda waxa weeye haddaan dhinacaani badnayn waa la wada degan yahay. intaas oo degmo oo la degan yahay ayaa la yaqaan. beeni ma shaqaynayso, beenta ha laga yimaado, aanu isku nimaadno. maamulka galmudug halkan markay dhisanto madaxda ka dhisanta waxay la tahay reer puntland wixii concern ay qabaan waa la wada hadli karaa. waa gartay cabdi, puntland waxay leedahay federaalkiibaa la dhinaca maray oo laga weecday. adigu maxaad ku macnayn kartaa maxaa laga leexday oo puntland ay qoonsatay? waxa weeye puntland waxaa la yidhi muxuu ahaa waraabihii la teg martay laga dhig waa u cerad. puntland dawladda federaalkay baadaa, waxay baadaan madaxda qaranka. madaxda qaranka loo caga jugleeyaa. madaxda qaranka waxaa xaq ah in maalin walba ay ka saxiixaan waxaas. marka de wixii waantii oo kale ana laga samaysanayaa dadkan deegaanka ay leeyihiin oo masaakiinta ah oo aan hadda dagaalka u jeedin weeye waxaa la rabaa in lagu barakiciyaan u malaynaya. marka hadday dagaalka fursan waayaan waxa weeye dadka nooloo jooga waxanbay iska oran doonaan, laakiin annagu dagaal ma qabno.